sida ay la socotaan maalmo ka hor waxaan dhagax dhignay dhismihii degmada Wadajir maantana waxaan u taagannahay MCH degmada Wadajir ay yeelanayso oo runtii maanta fursad weyn noo ah mudana gudoomiye ku xigeen waxaan maanta meeshaan taagan waa mas'uuliyiintii degmada Wadajir oo runtii muxuu ahaa maanta isugu yimiday dhagax dhig aad nagala soo qayb gashay maanta oo aan dhagax dhigayno xarun caafimaad oo MCH ah fulinaysana khadar khayriya ama khadar charity oo runtii maaragtay hay'ad in badan ka soo shaqeysa wadankan maantana degmada Wadajir ay nasiib u yeelatay inay ka caawiyaan MCH ka cusub runtii maanta waa maalin weyn waa maalin farxad leh waa maalin aan dhagax dhigayno xarun caafimaad oo ay yeelanayso degmada Wadajir runtii xaruntan caafimaadka waxaa dhisaysa hay'adda qadar charity mise qadar khayriya oo ah hay'ad samafal runtii muddo dheerna ka howlgalaysay dalka Soomaaliya si dhowna ula shaqeynaysay maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka 17 degmo ee gobolka Banaadir maanta waa maalin farxad kale oo ah oo aan dhammaan goobjoog u nahay in aan dhagax dhigno MCH cusub ay yeelan doonto degmada halka oo adeeg caafimaad muddo dhow ay ka heli doonaan hooyooyinka iyo dhallaanka degmada Wadajir